السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتها كسر لبادتنا كنسني فيلمس أند فلوجس and maanta waxaan marti u nahay Dr. Abdullah Aadan and Dr. Timacade oo aan ku booqnay xafiiskiisa and Dr. soo dhawo Dr. ما شاء الله لوحي سني فيلمس أدي أنا وقولها. Okay Dr. aad baan kaga mahadcelinaynaa fursadda iyo jaaniska aan noo siisay inaan kugu soo booqno xafiiskaaga and sidoo kale waxaa mahad iska leh Allah oo noo oggolaaday inaan adna naga aqbashay booqashada aan xafiiskaaga ku imaanay and Dr. haddii aan ku weydiin su-aasha ugu horeyso su-aalooyin dhowr ah hadday macquul noqoto waqtiga noo saamaxo ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aasha rabo inaan ku weydiiyo bal waxaa faahfaahin naga siisaa caafimaadka dalka iyo sida dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan caafimaadka. waa mahadsantahay mar kale run ahaantii su-aal baaxad weyn waaye laakiin si kooban maadaama waqtigu uu nagu yaryahay haddii aan u faahfaahiyo daawadayaashan janalkan quruxda badan caafimaadka dalka marba marxalad ayuu soo mareeyay marba steps uu soo mareeyay saad ogtahay 60kii markii qarankeena uu qaatay xurnimada kadib waxaa la aasaasay saad ogtahay jaamacadda ummadda oo gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxaa ka soo baxay dhakhaatiir oo maanta caan ah oo waddankan bulshadiisa kusoo kordhiyey ma soo koobi karo Dr. Dufle oo kaleeto dhakhaatiirteenan waaweyn Dr. Maxamed Yuusuf oo kaleeto marba waxaa uu soo maraayay laakiin waxaan isleeyahay qarnigan hadda lagu jiro gaar ahaan 10kii sano ama 15kii sano u dambeysay waxaan isleeyahay arday badan baa caafimaadkii xiiseynaya aada u barta ka qalin jibinaya waxaad arkaysaa jaamacadda Banaadir oo kaleeto jaamacadaha Muqdisho oo kaleeto boqolaal bay soo saarayaan arday oo dhakhaatiira taa marka waxay bedelaysaa bii'adii oo caafimaadku ku liidatay ilaan shakhsi walba wuxuu ka soo baxay ma ogtahay familkiisu wacyigelintii ku bilaabaya waxaa kaloo badanayso goobiya caafimaadka badanaya marka caafimaadka dalka sanadkii ka dambeeya waxaan isleeyahay rajo wanaagsan baa jirta walow caqabadana ay meesha ay ku jiraan. Okay aad u mahadsantahay Dr. su-aasha labaad haddii aan ku weydiiyo waxay noqonaysaa sidaa sheegtay arday badan oo jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo gobolada ka soo baxo dhammaantood badanaa fakultiyo badan ay bartaan dhanka caafimaadka markaan soo aadno arday badan ay ka soo baxdo kuwa kulliyado kala duwan oo caafimaadka bartay sidee uga faa'iidaysan karaan ardaydaasi maadaama ayaga caafimaad ay barteen dalkiina oo xaaladiisa sidaan tahay. Wallahi waa runta arday badan baa soo baxaysa sanadii u dambeeyay 15kii sano u dambeysay waa dhalinyaro gabdhi iyo wiilal isugu jira runtii caqabad way jirtaa oo markii horeba su-aasha ugu daray faa'iidadana way jirtaa laakiin caqabadihiina meesha way ku jiraan caqabadaha jira oo kaleeto haddaan mid laba kaaga kusoo waxaa ka mid ah dadkii oo qalin jibiyay ardaydeeni qalin jibisay sidoo gradekeygii oo kaleeto wixii lamid ah oo dhan waxay jecel yihiin inay joogaan caasimadii oo ka shaqeeyaan Muqdisho meel aysan uga bixin halka 18 maxay 17 gobol ee waddankeena ay baahi caafimaad oo baaxad weyn ay ka jirto weli waxyaabihii ugu basiidsanaa oo elimination wax la yiraahdo lagu sameeyay ma la tirtiray ama irrigation lagu sameeyay oo la xakiyay oo la controlay caalamka sida in islaan ama ay u dhimato dhiigbax oo kaleeto waxyaabo yaryar sidaas oo kaleeta ay ka dhacayaan gobolladeeni waaweynaa iyo degmooyinkeeni marka waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay central government oo kontaroosha ardayda soo qalin jibinaysa dhakhaatiirta cusub oo ku kala fadhisa degmooyinka tuulooyinka baadiyaha meel walba oo ay joogaan bulsho ay ku nool yihiin baa loo baahan yahay saasaa loogu faa'iidaysan karaa. aad u mahadsantahay su-aasha saddexaad aan rabnaa ku weydiiyo sidaan wada ognahay dhammaanteenba marka laga hadlo caafimaadka caafimaad darrada way jirtaa gobol badan oo ka tirsan Soomaaliya sida xitaa gobolkan Banaadir aan ku noolnahay waxaad arkaysaa waddooyinka qaar in loo qashin oo buuxdadna ay ku nool yihiin saameyn intee laag ayay ku yeelan kartaa dadka ku nool halkaas iyo wasaqda meeshaas maxaa ka dhalan kara? Of course qof walba waa ogyahay wax bartay not only qofka caafimaadka bartay in wasaqdu ay tahay waxyaabaha lidiga ku ah caafimaadka waa waxa sida dabka iyo biyaha oo kaleeto waxaan isleeyahay wacyigelin fara badan oo la sameeyo ayaa lagu gudbi karaa sidii hadayda aan sheegayna waxaa loo baahan yahay central government ama dawlad
waxyaabana wax dowladeed waxna waa organization hadda haddaan aan ku leeyahay caafimaadkii iyo ardaydii dhaqaatiirtii juniorka waxay u badan yihiin caasimadii micnaheedu ma ahan in ay caasimadii oo dhan ay maanta bilicdeedii nadaafadeedii iyo caafimaadkeedii ay ka hortageen qof walba wuxuu leeyahay organization gaar ah oo specially ah wuxuu leeyahay hebel specialist hospital aad maqlaysaa intaas marka specialist hospital wuxuu raadsanaa faa'iidadiis lacagtiisa waa business sidii dukaan camal qof u furtay oo kaleeto macaayo dad wax badan kusoo kordhiyay baa jira of course oo isbitaalada specialistyada oo kaleeto sida kalkaal oo kaleeto aan muddo ka shaqaynayay waxyaabo faa'iido leh kusoo kordhiyay laakiin dhanka kale waxaa marnaba laga maarmaan ah dowlad kontaroosha ka hortagta waxdii public healthiga oo kaleeto waa meesha ka maqan nadaafadii biyada oo kaleeto hadda aad soo hadal qaaday waxaa ka meesha ka maqan public health waxaa waa wacyigelintii nadaafadii ka hortagii buu leeyahay ma ogtahay dhakhaatiirtina waxay leeyihiin curementiga daaweyntii bay leeyihiin marka dowladdii wixii baa meesha ka maqan دكتور سؤال شافرات ربنا كويتي وإحنا خلصنا عافماتك وشيء مهمة طيب كله تقصون علينا بدنا وحاكي ساعين يولي يستان رقمدي هو رقم تيني سكرنا إنه حاكي ساعة مركز حنوصل ومركز الدواوين نوع صعبة هاي ما جمع عن مركز بس أدون قصير المرايا تلاقوا هي كلين الدواوين كانوا مقعدنا أما نوعا ما في عنو واحد استعمال dawooyinkii hore ee markaasi natural ahaa kuwan chemical leeyihiin dadkaas sidee loo wacyigelin karaa oo looga dhaadhicin karaa inay qaataan dawooyinka casriga ee markaasi dalka imaanaya ama adduunka kusoo hormaraya waa mahadsan tahay marnaba aniga ma dhahayo daawooyinkii daawireedka loo yaqiinay oo dhaqankeenu ah isku daaweyn jiray marnaba ma dhahayo waa daawooyin xun ma dhahayo aniga waa daawooyin sax ah daawooyinka kiimikadana waa iyagii oo border lagu daray wax oo border lagu daray waa iyagii la farsameeyay oo la warshadeeyay oo dosage loo sameeyay hadda tusaale ahaan oo kaleeto sanjabiishu waa daawo laakiin ilaa xad kee aad ka qaadanaysaa ilaa kaniini waxaad arkaysaa 500 miligram 1,000 miligram waxaad intaas arkaysaa grams baa arkaysaa ma ogtahay oo lagu qiyaasay weightkaaga ama culayskaaga laakiin waxaas leeyahay daawo-reedkii wuu fiicnaa daawooyin wuu ahaa laakiin dosage waa meesha lagu kala tagay marka waxaas leeyahay haddii la helo dhakhaatiir ama cilmi baariyaal ku takhasusay oo noo sheega mid walba wuxuu u fiican yahay iyo xaddiga waan ku celinaya weliba xaddiga laga isticmaalayo waa muhiim daawooyin fiican baa ku jira geedaha caleenta daawooyin waxyaabo waxaa ku jira oo natural ah oo ilaahi subxaanahu wa tacaala nagu manaysta aad baa umahadsan tahay doctore waxaan kaaga mahadcelinaya mar labaad mar saddexaad waqtiga aan siisay aan kugu soo booqnay xafiiskaaga waa mahadsan tahay aad iyo aad waa mahadsan tahay waa soo dhawow